kulan wacan akhyaarta aan jecelnahay oo ku soo dhawaada barnaamij aan ugu magac darnay galka xikmadda. barnaamijkan ayaan idin soo gudbin doonaa isbuucii hal mar, waana maalinta Arbacada insha Allah. xalqadeena maanta waxay ku saabsan tahay caalimkii laga fahmay 9 nin caalim ahaa oo dadka cilmiga diinta u faa'iideyn jiray ayaa maalin maalmaha ka mid ah wareystay ardaygiisii oo muddo 33 sano ah aan mar kaliya ka fogaan. kadibna wuxuu ogaaday in muddadaas dheer casharada uu ardaygiisii ka faa'iideystay ay 9 kaliya yihiin. haddaba su'aasha waxa ay tahay 9 cashar ma yihiin kuwa u qalma waqtiga intaa la eg? qisadan oo xikmad badani ku duugan tahay waxa ay ku bilaabanaysaa sidaan. caalimkii ayaa ardaygiisii weydiiyey oo yiri ilaa goorma ayaan wada soconay? ardaygii ayaa ku jawaabay 33 sano ayaan rafiiq ahayn. caalimkii ayaa yiri waqtiga intaas la eg maxaad iga baratay? ardaygii ayaa ku jawaabay 8 mas'ale ayaan ka bartay. caalimkii ayaa haddana yiri cimrigeygii oo dhan ayaan ku horay, markaas 8 mas'ale oo kaliya iga faa'iiday miya? ardaygii ayaa ku jawaabay been ma sheegi karo, 9kaas darsi ayuun baan ka faa'iiday muddadaas. caalimkii ayaa yiri bal hadda ii sheeg 8 mas'alo ee aad iga faa'iiday. ardaygii ayaa tiriyay duruusta uu ka bartay, wuxuuna yiri lambarka koowaad waxa aan ka bartay in ruux kasta uu leeyahay hiwaayad iyo balwad uu jecel yahay inuu ku raaxaysto, laakiin maalinta uu dhinto ay dunidan kaga harto. markaasaan doortay in xasanaadka iyo cibaadada aan ka dhigto wehel iyo jecel dhab ah, waayo waa shaqada kaliya ee la hubo in ay qabriga ku raacayso. lambarka labaad waxaan ka bartay qowlka Allah subhanahu wa ta'ala ee micnihiisu yahay qofka ka cabsada horjoogsiga uu rabbigii hor istaagi doono ee nafta u diida hiwaayada iyo in ay balwadaheeda raacdo, jannada ayaa hooygiisa ah. markaasaan nafteeda ka fogeeyay hawadeyda oo aan ku xasilay taacada Allah subhanahu wa ta'ala. lambarka saddexaad dadka oo dhan ayaan u fiirsaday, markaasaan arkay in qof kasta uu si gaar ah u haysto shay qiimo badan ku ag leh oo marnaba dayacaad u qooreynin. haddana waxaan eegay hadalka Allah subhanahu wa ta'ala micnihiisu yahay waxaad haysataan wuu dhamaanayaa, waxa alla agtiisa ahaadayna uu baaqi ahaanaya uu waaraya. markaasaan mar kasta oo aan hantiyo shay qiimo badan waxaan u baxsadaa hore oo micnihiisu u yahay sadaqa ayaan u baxsadaa si Allah subhanahu wa ta'ala agtiisa igu ilaaliyo. lambarka afraad waxaan arkay dadka oo dhan oo isugu faanaya maal, nasab iyo tol. kadib waxaan eegay hadalka Allah subhanahu wa ta'ala ee micnihiisu yahay Allah agtiisa waxaa idinku qiimo badan kiina ugu cabsida badan. markaasaan dhexda u xirtay cabsida Allah subhanahu wa ta'ala si aan Allah agtiisa laandheero ugu noqdo. lambarka shanaad waxaan arkay dadkii oo barkoodba barka kale ceebeynaya oo dhaleeceynaya, sababta ugu badan ee keentayna ay tahay xaasidnimada. kadib waxaan eegay hadalka Allah subhanahu wa ta'ala ee micnihiisu yahay anaga ayaa noloshooda adduun u qaybinay sida risqiga, lacagta, aqliga, fahamka, cilmiga iyo wixii la mid ah. markaasaan isaga tagay xaasidnimadii, dadkii sharkoodana ka dheeraaday. waxa aan nafteyda ku qanciyay in qaybtu ay Alle xaggiisa ka timaado, markaasaan xaasidnimadii ka bogsaday. lambarka lixaad waxa aan arkay dadkii oo barkooda barka kale colaadinaya oo dhiigooda qubaya. markaasaan haddana eegay hadalka Allah subhanahu wa ta'ala ee quraankiisa uu ku yiri shayaadiinta cadow ayay idin yihiin ee cadow ka dhigta. markaasaan isaga tagay colaadinta aadamaha oo aan u banbaxay colaadinta shayaadiinta oo kaliya. lambarka 7 waxa aan arkay dadkii oo mid kasta naftiisa u xanuujinayo una dulaynayo sidii uu risqi u heli lahaa, oo xitaa mararka qaarkood ay la galayso wax aan xalaal u ahayn. markaasaan haddana dib u eegay hadalka Allah subhanahu wa ta'ala ee micnihiisu yahay ma jiro
noole dhulka guudkiisa jooga oo aan Allah risqigiisu saarnayn. markaasaan nafta ku qanciyay in aan ka mid ahay noolahaas ee Alla risqigooda dusha u ritay ee dhulka uu ku dhaqay. sidaa awgeed waxa aan ku mashquulay waxa uu Allah subxaanahu wa ta'ala anigu ugu leeyahay ee waajibaad ka soo bixid ah. Allana waxaan u dhaafay inta aan anigu ku leeyahay oo ah in uu i arsaaqo. lambarka 8 waxa aan eegay dadkii markaasaan arkay in mid kasta oo ka mid ahi uu ku tiirsan yahay oo uu tala saarto makhluuq kale oo sidiisii uu Alla u abuuray. mid maalkiisa iyo risqigiisa ayuu ugu tiirsan yahay, mid danihiisa kale taladiisa iyo talada deegaankiisa ayuu ugu tiirsan yahay, mid caafimaad ayuu u daba fadhiyaa, meel kasta qof ayuu u sameystay. markaasaan dib u eegay qowlka Allah subxaanahu wa ta'ala ee micnihiisu yahay kii Alla tala saarto Allah ayaa xisbigiisa iyo kaafigiisa ah oo Allah ayaa kaafinaya. haddaad soo gaartay ilaa dhammaad waxaan kaa codsanaynaa inaad laakiin oo saarto muuqaalka, haddii aad awoodana inaad share garayso waad mahadsantihiin.